Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada cashirkeenii shanaad. Cashirkan waxaad ku baran doontaa sida aad alaab uga soo qaadi laheeday China ama Alibaba gudihiisa, kadibna aad u keeni laheeday Soomaaliya ama meeshii hadba aad joogtid. Marka shippingka ama markii alaab la soo raraayo, dariiqooyinka la maro ayaan cashirkan iskula baran doonaa. Waxaa la dhahaa shippingka waa qaybta ugu adag ama ugu qalafsan markii la joogo e-commerce-ga. laakiin marka aad fahanto aad ayay u fududaanaysaa. Macnaha hawado badan oo dad alaab dalba lahaa waxaa ka heesta dhanka shippingka markii alaabta la soo raraayo. Shippingka laba ayaa loo qaybiyaa, waa shipping air iyo mid loo yaqaano sea shipping. In diyaarad alaabta la soo saaro iyo in alaabta la soo saaro markab in la soo saaro. Marka goormee aad diyaarad soo saaraysaa, goormee ayaana markab soo saaraysaa, muhiimadda halkaas waaye. diyaarad waxaa saaraysaa markii alaabtaada ay ka yar tahay 1 kiilo 2 kiilo 3 kiilo ugu badnaan 3 kg ilaa 2 kg ilaa 1 kg oo haddana yar oo box yar deeqdo diyaarad inaad soo saartid ayaa ku wanaagsan. laakiin shayga mar hadduu 5 iyo 6 iyo 7 ka bato waa ku wanaagsan in aad markab soo saartid. dadka qaar marka waxay dhahayaan markab la sugi kari 40 maalin 50 maalin ayuu maqnaanayaa. alaabtaada dalbo before inta aadan suuqa aadan geenin ama aadan u baahanin. macnaha ka hor intaadan howsha bilaabin alaabtaada sii dalbo. markaa bilow tahay alaab yar aad dalbanaysid si aadan u caajisin waxaa kuu fiican air shipping inaad isticmaasho ayaad kuu fududaanaysa. waayo markaas waxay ku imaanaysaa alaabtaada 10 biri ilaa 15 biri gudahood. laakiin waxaa aad u jaban qiimo ahaan qaybta shippingka oo badda markii alaab la soo saarayo. marka 5 kartoon ayaa laga yaabaa in lagu keeno $60, $70 ama $50 wax ka yar. haddaa adoo alaab 10 kiilaa soo saarto maxaa la dhahaa diyaarad, waxaa dhici doonto in aad $10 kiiladii ayaa lagu soo qaadaa China to Muqdisho. hadda Chinese kale markay kula hadlayaan waxay ku dhahayaan waxaad ila wadaagtaa fire forwardka ama fire forward. marka waxaa waaye waa qofka alaabta kuu soo raraya adresskiisa isii. markay adresska weydiinayaan tarayaasha isticmaalaan waxaa kamid ah fire forwardkaya ama qofka alaabta kuu soo qaadayo inaad adresskiisa u dirtid. marka alaab soo baartay Alibaba imaaday kadibna aad alaab raadisay supplier badan alaabta iibinayay aad ka xulatay supplierka ugu wanaagsan dhanka qiimaha hawada iyo shuruudihii aad ka fiirinaysay. kadib supplierkaas aad la xiriirtay la sheekeysatay qiimihii aad ka wada hadasheen wuxuu ku weydiinaa soo dir adres. marka waa inaad diyaarsato 2 adres markab iyo adres diyaarad. hada anigoo kale marka alaabta soo qaadanayo markabka waxaa isticmaalaa waa golden cargo. diyaarad markii lasoo saarayane waxaan isticmaalaa hatuf cargo oo kale. marka adresyadaas oo kale ayaad sameynaysaa, sawiradooda ayaa kuugu jiro mobilka. qofka markuu ku dhaho marka fire forwardkaaga ama meesha aan alaabta ku geyn lahaa ii soo dir si aan u qiimeeyo shipping costiga. waayo China gudaheeda lacagaa lagu jaajar gareynaa. alaabta markay $50 joogto tusaale $5 ama $6 ama $7 ama $10 ayaa ku bixi doonto kaargooga China gudihiisa. kadib ayaa kaargooga kale ku bixi doontaa qiimaha from China to Muqdisho kale. intaas marka diyaarad iyo waxaa jirta markab alaabtaada haddii ay badan tahay markab soo saaro. alaabtaada haddii 1 kiilo 2 kiilo ilaa 3 kiilo ay tahayna diyaarad soo saaro si waqti degdeg kugu imaado. mar walbane alaabta markaad dalbanaysid haddii ay suurtagal tahay waxaad ka dalbataa sambal oo 1 xabo ilaa 10 xabo u dhexeeya. macnaha alaab adiga oonan ogaanin tayadeeda 100 xabo ama 50 xabo ha dalbanin. orderka marka aad sameynaysid paymentiga tusaale hadda payment nagu taaganaa jirto halkan. marka hadda messageka aad tagno marka waa same mobilka. mobilka markaa ku isticmaalaysid horta messageka ayaa tagaysaa, markaa computer ku isticmaalaysidna messageka waa ka marka wax badan kuma kala duwana. hadda halkan markaa ku dhufto waxaa halkan yaalo payment ayaa nagu taagan. hadda lacag u diri rabnaa qofkan. hadda waa macaamiil marar badan aan wax ka iibsanay. paymentigaas hadda markaa ku dhufano maxaa la dhahaa paymentiga hadda make payment haddaa ku dhufto mastercardkiga automatically ugu xiran. automatically waxaa iga jarmaysa $33. $33 marka iga jarmatane hadda halkaa markaa ujeedno waxaa ujeedaa paymentiga bixi. paymentiga marka aad bixino
waxaan lahaa alaabtii delivery ayuu sameynaa alaabta sidaasay kugu soo gaari doontaa hadda halkaan markaa ku dhufano marka oo orderiska aa ku dhufano orderiska markaa ku dhufato waxaa ka arki kartaa kuwa aadan lacagtooda bixin unpaid waxaa ka arki kartaa preparing to ship kuwa lasoo qaadi rabo alaabaha maaragtay lasoo qaadayo kale waxaa ka arki kartaa delivering alaabaha delivery lagu sameeyo gaari micnaha ay soo rareen oo kuu soo socdo waxaa arki kartaa halkan meesha complete alaabaha dhammaaday alaabihii dhammaaday closid waxa waaye kuwa aad review maaragta kuwa iska kansashay oo aad maaragta iska dhaaftay marka intaas hadda complete alaabtii ku imaaday complete ay gelaysaa review aad ka bixin kartaa maaragta delivery alaabtii waxa waaye kuwa oo ay ka soo baxday qolada Chinese-ka gaari ay soo saareen waxay soo gaaraysaa maaragtay fire forwardkaaga ama qofka alaabta kuu soo raraya preparing to ship waxa waaye markii aad bixiso lacagta ayna diyaarinayaan alaabtii package gareynayaan mar walba markay alaabta packaging ku sameeyaan waxaa muhiim ah inaad u qorto maxaa la dhahaa numberkaaga iyo magacaaga aad muhiim u tahay inaan ka iloobin oo aad dhahdo magac iyo number igu qora tusaale hadda numberkeena iyo magaceena ayaa halkaas ugu qorna si waayo haddii alaabta ay gaarto qolada cargo-ga oo bilaa magac ah alaabtaas halkood ay iska taali doontaa waxaa kaloo muhiim ah alaab haddaad dalbato ee ku dhahaan waan qaadnay waxaan geynay xafiiska qolada cargo-ga cargo-gan adiga aad haysato adresskiisa whatsappka kala hadal u sheeg niyo alaab oo noocaas ah oo magacayga iyo numberkan ku qorantaa midin soo gaartay dee maya ku dhahaan tracking numberkaa u dir tracking number wax laa jiro number ay ku siinayaan marka iska hubi intaan waqti kaa dhamaan lahaa alaab tracking numberka u dir waxaa dhahdaa alaabtaan hala hubiyo ma soo baxday alaabta hala socminaa waqtigeeda intaasna waxaa waaye waxyaabaha ay muhiimka ku tahay waxaan rajeynaa marka inaan hadda isla baranay sida aan alaab uu sameyn lahaynay kadib Alibaba inaan furano alaabta inaan ka dhex raadino la gorgortano adreska u dirno lacagta bixino kadibna alaabtii aan sugno inay inoo imaado marka hadda waxaa dhamaatay qaybtii ahaa inaan alaab dalbano keensano ayaa dhamaatay marka hadda ciwaanka kale waxaan gelaynaa alaabtii inoo imaaday sida aan u xayeysiin lahaynay sida aan brandigeena ama magaca shirkadeena cusub aan u dhisi lahaynay intaas ayaan kusoo gabagelaynaa cashirkeeni shanaad la soco cashirkan iyo cashirada xiga insha allah